xafiis diblomaasiyadeed ayay Taiwan ka furatay caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxayna Somaliland iyo Taiwan ba ku tilmaameen maalin taariikhda ku suntan madaxweynaha Taiwan haweeneyda lagu magacaabo Tsai Ing-wen ayaa khadka Skype-ka kaga soo qayb gashay munaasabad xadhiga laga jiriyay xafiiska diblomaasiyadeed ee Taiwan ka furatay Hargeysa waxaana hadaladeedii ka mid ahaa. Good morning. Greetings from Taipei. Today marks a very special occasion in the relationship between Taiwan and maanta waa maalin ku suntan xiriirka cusub ee Taiwan iyo Somaliland taasoo ah furitaanka xafiiska diblomaasiyadeed ee Taiwan ay ku yeelan doonto Somaliland waad ku mahadsantiin dhammaantiinba ka soo qaybgalkeena munaasabadan waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dawladda iyo shacabka reer Somaliland ee na siiyay soo dhaweyntan diiran xiriirka saaxiibtinimo ee Taiwan iyo Somaliland waxa saldhig u ah qiyamka guud sida xorriyadda dimuqraadiyadda cadaaladda iyo ku dhaqanka sharciga kuwaasina waa kuwa aanu doonayno inaan iska kaashano oo aan sii xoojino Taiwan waxay ku dadaalaysaa inay sii balaadhiso oo ay sii xoojiso xiriirka saaxiibtinimo ee ay la wadaagayso Somaliland iyo inaan si wada jir uga wada shaqeyno sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha inagoo ku kalsoon inaan si wada jir uga wada faa'iideysan doono Taiwan waxay si xoog leh uga go'an inay kala shaqeyso Somaliland arrimahan sida beeraha kalluumaysiga tamarta macdanta caafimaadka bulshada waxbarashada iyo tiknoolajiyadda waxaan ku kalsoonahay in labadeena dalba ay sameyn doonaan horumar weyn oo dhinacyadan oo dhan xiriirka saaxiibtinimo ee Taiwan iyo Somaliland wuxuu horseedi doonaa horumarinta nabadda xorriyadda iyo barwaaqada geeska Afrika oo dhan. Thank you.